shacabkii maanta markuu istaagay waa ka nimankii khawaarijta ah banaanka loo tuuray dadka leynayay ee ceelasha duugayay ee guryaha gubayay ee mataqana tuuladan dabka qabadsiinayay waa kuwaasi cararaya way dabayshadeen oo maxaa dhacay shalay adaa hoosta ku haysidii shalay adigaan toosnayn wiilkaaga ku jiray maada sheegin oo wiilkaaga ku jiray waa inaad qabataan halkan waxa iska weydiinayaa shacabkeena Soomaaliyeed qarax baanu maanta arkaynaa hotel dhan baa la qarxiyay hooyooyin meel wax ku gadanaya la qarxiyay wada la qarxiyay gaari baa la qarxiyay guri baa la qarxiyay nin meel fadhiya ayaa la toogtay la dilay cid loo soo qabtayna male khalalku xageebu ka jira cid wax qarxinaysa ee zaalimada ah ee mujrimada ah ee mufsidada ah ee khawaarijta kama hadlayo laakiin waxaan la hadlayaa on qalbiga kala hadlayaa war shacabkan la qarxin hayo shacabka la baabiin hayo adugu kan ku qarxinaya adugu kugu dhaxnool yahay wadagood wadaliilu ala dhalik shacabki maanta markuu kacay shacabki maanta markuu istaagay waa ka nimankii khawaarijta ah banaanka loo tuuray dadka leynayay ee ceelasha duugayay ee guryaha gubayay ee mataqana tuuladan dabka qabadsiinayay waa kuwaasi cararaya way dabayshadeen oo maxaa dhacay shalay adaa hoosta ku haysidii shalay adigaan toosnayn wiilkaaga ku jiray maada sheegin oo wiilkaaga ku jiray maada leeynin kan la dilayo ee lagu dilayo hotelka waxa weeye cidi dishay waa la soo qaban waayay waayo waa la arkayay waa cararay oo waa tagay baa leeyay isku soo duuduubo shacab daacad ka ah shacab toosan ayaa amni samaysan kara oo dariska waxa ku soo biiray iyo qofka qaloocan gacanta qaban kara